kulankan ballaadhan ee u dhaxeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ahaa mid muddo qaatay ayaa intii uu socday waxa lagu lafaguray si xoojinta cilaaqaadka qotada dheer ee u dhaxeeya labada wadan gaar ahaan arrimaha nabadgelyada ka wada shaqaynta arrimaha siyaasadda ganacsiga iyo arrimo kale oo muhiim u ah labada wadan markii uu si rasmi ah u soo dhamaaday kulanka ay wada qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta waxa warbaahinta uga warramay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Yaasiin Caji Maxamuud Xiir Faratoon waxa uu ka warramay waxyaabaha ay ka wada hadleen labada madaxweyne wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxa uu yiri saaka sagaalkii marka laga bilaabo ilaa 3 galabnimo waxa lagu jiray wafdiga madaxweynaha hogaaminayay iyo dawladda Kenya waxay ku jireen shirar kala duwan iyo isaragyo shirarkaasi iyo isaragyadaas waxay isugu jireen noocyo badan waxa kamid ahaa kuwo labada wafdiga iyo dawladda Kenya ay si kafool wada hadlayeen oo soo hor fariisteen oo si guud loo wada hadlayay waxa kamid ah kuwa si gaar oo albaabadu u xiran yihiin ay labada madaxweyne ugu wada hadleen waxa kamid ah kuwa gudiyo loo qaybiyay oo ay gudiyo ay sarkayeen shirarkaas wali may soo afjarmid ilaa imika way socdaan berito wali waxa balansan madaxweynaha labada madaxweyne sidii ay maanta bay soo arkeen ay u balansan yihiin iyagoo maanta muddo badan isku qaatay oo saacad iyo bad muddo ah labada kaliya wada hadlayay berritana sidii bay u balansan yihiin taa iyo mid lamid ah isla mar ahaanta galabta waxa balansan wafdiyadii wasaaradda iyo maxaahato khubarada kale ee reer Soomaaliland ee halka joogta iyo dawladda Kenya ayaa balansan oo isla eegaya waxyaalihii la isla afkartay hadday tahay labada madaxweyne ay gaarka uga wada hadleen haddii ay yihiin kuwii mataqaana ka foolka labada wafdiga iyo dawladdu ay isaga arkeen marka labada madaxweyne sida ay noo sheegeen waxyaalo badan bay ka wada hadleen wax walba dhinac walba oo ay dareynayeen way ka wada hadleen hadday tahay siyaasad iyo diblomaasiyad hadday tahay nabadgelyo iskaashi nabadgelyo hadday tahay ganacsi iyo maxaato iyo baayac mushtari hadday tahay sida la isaga kaashan lahaa hadday tahay dhinac walba waa laga wada hadlay waxaan ka wada hadlin maanta ma jiro alxamdulillah rabbil caalamiin inta badanna intii ay ka wada hadleen sida ay noo sheegeen si wanaagsan bay isla garteen oo isla meel dhigeen kulamada ballaadhan ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga ballaadhan ee uu hogaaminayo ay la qaadanayaan mas'uuliyiinta ugu sarreeya wadanka Kenya ayaa ilaa maalinta bariya sii socon doona kuwaas oo lagu gorfayn doono xiriirka u dhaxeeya wadamada Soomaaliland iyo Kenya أحمد سكي داير حسن ورباهين تقرنك مقالة مدحدة ودنك كينيا النيروبي